عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دوادا جنال كالدور اوفيشيال. maanta waxaan kusoo qaadan doonaa barnaamijka 8 madaxweyne ee ugu dambeysay dalka Ciraaq, xilliyadii ay dhasheen, xilliyadii ay mid walba geeriyooday iyo intii sano uu hayay xilka. Madaxweynaha koowaad waa Maxamed Najiib al-Rabiici, wuxuuna dhashay 1904 wuxuuna geeriyooday 1966. xilka wuxuu qabtay 14 Juulaay 1958, wuxuuna xilka ka tegay 8 February 1963. wuxuuna xilka hayay 4 sano. madaxweynaha labaad waa Cabdisalaam Caarif, wuxuuna dhashay 1921, wuxuu geeriyooday 1966. xilka wuxuu qabtay 8 February 1963, wuxuuna ka tegay 13 Abriil 1966, isagoo weliba ku geeriyooday xafiiskiisa dhexdiisa. wuxuuna xilka hayay 3 sano. madaxweynaha saddexaad waa Cabdiraxmaan Caarif, wuxuu dhashay 1916, wuxuuna geeriyooday 2007. xilka wuxuu qabtay 16 Abriil 1966, wuxuuna ka tegay 17 Juulaay 1968, wuxuuna xilka hayay 2 sano. madaxweynaha afraad waa Axmed Xasan Albakar, wuxuuna dhashay 1914, wuxuuna geeriyooday 1982. xilka wuxuu qabtay 17 Juulaay 1968, wuxuuna ka tegay 16 Juulaay 1979. xilka wuxuuna hayay 10 sano. madaxweynaha shanaad waa Saadaam Xuseen, oo aad wada taqaanaan, wuxuu dhashay 1937, wuxuuna geeriyooday 2006. xilka wuxuu qabtay 16 Juulaay 1995, wuxuuna ka tegay 9 Abriil 2002, wuxuuna hayay 23 sano. madaxweynaha lixaad waa Jalaal Talibani, wuxuu dhashay 1933, wuxuuna geeriyooday 2017. xilka wuxuu qabtay 7 Abriil 2005, wuxuuna ka tegay 24 Juulaay 2014, wuxuuna hayay 9 sano. madaxweynaha toddobaad waa Fuaad Macsuum, wuxuu dhashay 1938, wuxuuna qabtay xilka 24 Juulaay 2014, wuxuuna ka tegay 2 Oktoobar 2018, wuxuuna hayay muddo dhan 4 sano. madaxweynaha sideedaad waa Barham Saalax, wuxuu dhashay 1966, wuxuu qabtay xilka 2 Oktoobar 2018, wuxuuna xilka hayay 1 sano. halkaasna waxaa inoogu eg barnaamijkeena ugu hadlaynay 8 madaxweyne ee ugu dambeysay dalka Ciraaq. fadlan janaalka haddaad ku cusub tahay, subscribe saar, like siina share garee. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.